السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الرزاق أحمد halkaad naga daawanaysan عبد الرزاق أحمد official kusoo dhawaada mawduuceena maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa sidee jatiska loo yareeyaa applicationada la isticmaalo sida WhatsApp, Facebooka iyo Messengerka jatiskooda qaybtooda jatiska qaabka far ahaan loo yareeyo iyo cabir ahaan ayaan halkan rabaa inaan idinkula wadaago. Okay, ma u baahnid in application la soo degtid sida qaybta jatiska aad ugu yareysid, balse waxaad u baahan tahay setting-ka inaad isticmaashid oo qaybta setting-ka aad ka saxdid. Okay, marka koowaad waxaad sameynaysaa waxaad tagi doontaa tusaale ahaan hadda idiin soo qaato waxa la yareynayo WhatsApp oo kala tagaysaa. WhatsApp markaad tagtid waxaad arki doontaa qaybta jatiska in ay fartooda iyo display-geeda aad ay u waaweyn yihiin. Sidoo kale haddii aan idin tuso qaybta Messengerka oo kale asina fartiisa waa u weyn tahay. Marka waxaan sameyn doonaa marka koowaad waxaan u baahannahay inaan tagno setting-ka. Qaybta setting-ka markaan tagno qaybta setting-ka oo kale aan tagaynaa. Setting-ka markaan tagno kadib waxaan tagi doonaa qaybta ay ku qoran tahay develop option. Haddii develop option-ka oo ku lahayn waxaad tagi doontaa about-ka markaad tagtid kadib informations software information ku dhufa doontaa. Software information markaa ku dhufatid kadib billing number-ka aad dhowr mar ku celceli doontaa. Kadibna develop option-ka ayaa kusoo bixi doona, setting-ka ayaa kusoo noqon doontaa. Qaybta hoose markaa imaatid develop option-ka ayaa ku dhufa doontaa. Okay, develop option-ka ku dhufanay waxaad tagi doonaa qaybtiisa drawing-ka, qayb ay drawing ku qoran tahay. Hadda networking-ka mareynaa waxaa jirta qayb ay ku qoran tahay drawing input-ka waa kan. qaybta drawing oo ku qoran tahay waa joognaa. Waxaa ka tagi doonaa minimum width. qaybta minimum width-ka hadda waxay joogtaa maximum 320. minimum-kiisa tusaale ahaan waxaan ka dhigi doonaa 640 markaa ka dhigno bal aan aragno waxa ku dhaca qaybta jatiska iyo qaybta setting-ka. Okay, hadda waa kaas waxa saad aragteenba qaybta setting-ka waa uu yaraaday qaybta display-geeda. Sidoo kale haddii aan ku noqono meesha date aan tusayo WhatsApp-ka haddaan ku noqdo waxaad arki doontaa in apps-kii ay yaraadeen. Okay, sidoo kale haddii aan idin tuso qaybta Messenger-ka asigana apps-kii waa yaraadeen. Marka sida ugu fudud oo app-kan aad ku yareyn karto qaybta jatiska oo display badan aad u heli karto markii aad maximum-ka aad isticmaashid display waxaad laga yaabaa 4, 3, 5 qof camal inay kusoo qaybta display ka buuxiso. Laakiin haddii aad minimize gareyso waxaa laga yaabaa ugu yaraan 12 qof inaad jatkooda la socon karto ama aad arki karto. Ma rabo video-gan inaan ku dheeraado. Hadda waxaan u maleynayaa in aad fahamtay qaabkii aad u yareyn lahayd jat display-gaaga. Marka waxaan kusoo koobayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.